السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا ورarka galabnimo ee Hiilamediya qodobada aan idinku haynana waxa ugu waaweyn wafdi gaaray Dhuusamareeb oo la kulmay ra'iisul wasaare Khayre taliyaasha ciidamada oo fulinaya amarkii ra'iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha maamulka Galmudug oo warka soo saaray doorashada Galmudug ciidamo ka tirsan Puntland oo gadood sameeyay gudoomiyaha Cabdi Xaashi oo markaasi qodbad ka jeediyay shirka baarlamaanka adduunka maamulka gobolka Banaadir oo shuruudo ku xiray dadka u dhoofay dalka dibadiisa akhbaraadka dibadda aan idin haynana waxa ugu waaweyn booliiska Kenya oo lagu eedeeyay xadgudubyo iyo markaasi nin ku hanjabay inuu qarxin doono qonsuliyadda Masar ee magaalada Doha ee dalka Qatar qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ayaad ku daawan doontaan warka galabnimo ee Hiilamediya saaxiibayaal wakiilka gaarka ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika oo qaabilsan Soomaaliya Francisco Madela iyo ergeyga gaarka ee IGAD Maxamed Ali Gooyo ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug Francisco Madela iyo Maxamed Ali Gooyo ayaa markii ay gaareen Dhuusamareeb waxa ay kulan la qaateen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo deegaanada Galmudug u jooga socdaal uu gogol xaarayo dhismaha Galmudug markaasi loo dhayahay kana markaasi shaqeynaya danaha reer Galmudug wakiilada midowga Afrika iyo IGAD u qaabilsan Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada uu ra'iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay ee dib u heshiisiinta dib u dhiska oo diyaar garowga loogu jiro doorashada dawlad goboleedka Galmudug iyo qorshaha dib u habeynta ciidamada Francisco Madela iyo Maxamed Cali Gooyo ayaa Dhuusamareeb u gaaray in ay markaasi la socdaan hanaanka ay u socdaan dadaalada loogu diyaar garoobayo dhismaha iyo dhameystirka hay'adaha dawlad goboleedka Galmudug kulan magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo mas'uuliyiinta Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa looga hadlay sidii loo qarameyn lahaa ciidanka Ahlus Sunna mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ku kulmay magaalada Dhuusamareeb ayaa hoosta ka xariiqay sida ugu dhaqsiyaha badan loo diiwaan gelinayo ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaaca waxa haatan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu diiwaan gelinayo ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaaca taliyaasha ciidanka qalabka sida oo gudagalay dhaqan gelinta amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee ahaa in la qarameeyo Ahlus Sunna laamaha ammaanka Dhuusamareeb laga howlgeliyo ayaa qorshuhu yahay in si markaas sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga gungaaraan si markaas loogu diyaar garoobo xoreynta deegaanada maamulka Galmudug madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa markii ugu horeysay shaaciyay inuu ogolaaday in xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay hogaamiso geedi socodka arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka maamulkaasi war qoraal ah oo soo saaray madaxweyne Xaaf ayuu sheegay in markii uu arkay qodobka kontonaad farqadiisa shanaad ee dastuurka dawlad goboleedka Galmudug baahida loo qabo in la dedejiyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka iyo markii uu tixgeliyay xaaladda cakiran ee maamulka oo go'aan ka gaaray in geedi socodka doorashooyinka oo u wakiisho wasaaradda arrimaha gudaha wararka laga helayo gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay isaga soo baxeen saldhig ay ku lahaayeen aaga deegaanka Tukaraq oo dhowr jeer ay kula dagaalameen ciidamo ka tirsan Somaliland ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen in ay tageen magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal oo ku sugan yahay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ciidamada ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa ka gadoodsan mushaar la'aan waxaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen in saddexdii bilood ee la soo dhaafay aysan qaadanin wax mushaar dadka ku sugan duleedka magaalada Garowe ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay arkeen ciidamadaas oo wata gaadiidka dagaalka iyagoo u gudbay dhanka koonfureed ee magaalada Garowe
talisyada kala duwan ee ciidamada Puntland weli kama hadlin gadoodka ay sameeyeen ciidamada waxaana horay u jirtay in ciidamo ka tirsan Puntland ay baneeyeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanada Afurur iyo Tukarraq ee gobolka Bari iyo Sanaag. Shirka madasha baarlamaanka adduunka ayaa lagu soo gabangabeeyay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka iyadoo shirkii uu socday lagu falanqeeyay doorka xeerdejiyaasha adduunka ay ka qaadan karaan xal u helidda mashaakilada adduunka ka taagan. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hogaaminayay ergeyda Soomaaliyeed ayaa shirka inta uu socday ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay arrimaha muhiimka ay tahay in la xalliyo madasha baarlamaanka adduunka taas oo si weyn loogu gorfeeyay intii uu socday shirkaasi. Ergada Soomaaliyeed waxa ay sidoo kale kulamo gooni ah la yeesheen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Ruushka iyadoo ay labada dhinacaas la soo hadal qaadeen xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Ruushka. gabangabadii shirka waxaa markaasi ka hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo sheegay muhiimadda iyo doorka baarlamaanka adduunka ee xallinta dhibaatooyinka jira. maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii kadib sameeyay buugga caafimaadka kaas oo ay qaadan doonaan muwaadiniinta ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee aadaya dalka dibadiisa. kulanka xalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrinta buugga caafimaadka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay qaataan waxaana buuggaasi hirgeliyay waxda caafimaadka dawladda hoose maamulka gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle ayaa sheegay in buuggaasi marka hore lagu bilaabayo dadka sanadkan aadaya xajka isla markaana qof walba oo Soomaali ah una dhoofaya dalka dibadiisa laga doonayo inuu qaato. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka waxa uu sheegay in buuggaasi laga qaadan karo goob kasta oo markaasi tigid laga jarayo isla markaana qiimihiisu yahay $10. waxa uuna sheegay in buuggaas loo sameeyay codsi ka yimid shacabka gobolka Banaadir. imikana akhbaraadka dibadda booliiska dalka Kenya ayaa inta badan lagu eedeeyay inay adeegsadaan awood xad dhaaf ah oo sharciga ka baxsan marka ay ku jiraan howlgalladooda. warbixin cusub oo la daabacay Arbacadii shalay ahayd ayaa hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ay sheegtay in booliisku uu ku lug leeyahay dilkii ugu yaraan 21 qof laga soo bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii 2018. dilkaas oo ay ku jiraan 2 qof oo ka soo jeeda markaasi xaafadaha isku raranta. dadka la dilay ayaa waxa ku jiray tagsiile markaasi oo xamaali jiray 2 caruur ah. yeeshee booliiska Kenya ay u arkeen in ay si weyn u doonayeen oo ku lug lahaa carqalado badan oo ka dhacay dalkaasi. cilmi baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegay in dilalka booliiska Kenya ay yihiin kuwo isku eg oo markaasi si isku mid ah u dhaca. waalidiinta ku nool xaafadaha isku raranta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa la sheegay inay cabsi weyn soo wajahday iyagoo markaasi ka baqdin qaba in booliiska Kenya ay si sarbeeb ah u waxyeeleeyaan caruurtooda. ugu dambeyntiina saaxiibayaal booliiska dalka Kuwait waxa ay gacanta ku dhigeen in 22 jir ah kaas oo ku hanjabay inuu qarxin doono qunsuliyadda Masar ay ku leedahay caasimadda dalka Qatar ee Doha isla markaana uu isagana isdili doono. wargeyska Al Riyaa ee ka soo baxa caasimadda dalka Kuwait ee Kuwait City waxa uu shalay qoray in markaas muwaadinka Kuwait ah sameeyay hanjabaadaasi kadib markii loo diiday inuu galo dhismaha diblomaasiyadda Masar ee ku yaala caasimadda dalka Qatar. wargeyskan ayaa qoray in ninkaasi diiday inuu markaasi ilaalada qunsuliyadda tuso aqoonsigiisa taas oo sababtay inaan loo ogolaanin inuu gudaha u galo qunsuliyadda si uu uga soo dhammaysto dukumiinti safaraha.
wargeyskan ayaa qoray inuu markaasi la soo baxay mindi iskuna tijaabiyay inuu ku dooxo mid ka mid ah ilaalada qunsuliyadda wuxuu kaloo ku hanjabay inuu isdili doono markii uu shilkaasi dhacay kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda Kuwait ee arrimaha brotokoolka ayaa la sheegay inuu la xiriiray safiirka Masar u jooga dalka Qatar kuna qanciyay inay markaasi dawladda Kuwait qaadi doonto tallaabo kasta oo muhiim ah oo ku aadan dhacdadaasi ammaanka hareeraha qunsuliyadda Masar ay ku leedahay caasimadda dalka Qatar ayaa la sheegay in la xoojiyay si looga foojignaado dhacdooyin kale oo la filan karo saaxiibayaal daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii galabnimo aad kala socoteen Hiila Media waxa halkan idinkaga soo tabinayay anigoo Gorbachev ha ilaawinina commentiga shareka subscribe saar kadibna gambaleelka furo si aad ula socotid wararkeena iyo warbixinada dambe aynu soo gali doono nabadgelyo